بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة سمكودرس وأنا قاعد في عبداللهية 10 كني لبدا إنه قلنا يكسب سنة فرشة أساسية رياكتي سي مركا إنه سلص عنه وحنا كسب بلابينا فولر عصب بروجكت عصب يعني كسب بلابينا أو بحنا رياكت جيس كبعدنا تجستي لي تركات عشا هاي أما مركا استعمال سيدا يكون فرشة الله فلا ينسمي سرنا ميد index.html iyo mid script.js marka waxaan rabnaa intaynu react gelin inaynu isbarbar dhigno javascript-ga hore ee lagu qori jiray iyo react waxay ku kala duwan yihiin iyo sababta ay ku dooranaysid hadii aadan isticmaalahayn localkaagan waxa online ka geli kartaa website-da code sandbox oo online text editor ama IDE iyo code ben oo kale kuwaasna waa geli kartaa halkaasna waa iskala socon karnaa code sandbox waxaad dooran kartaa create sandbox kabacdina javascript seka ayaa dooran kartaa ama react waxaan sameynayaa html boilerplate-kii ama structure-ka ayaan soo qaadanayaa VS Code ayaa fududeysay halkana script-geena ayaan soo include garaynayaa u yeedhayaa hadday kugu adag tahay qaabkan ku noqo koorsooyinka javascript-ga Sumcoders course fiican ayaa ku jira haddii aad hore u taqaanayna ka fiicanba si aynu tijaabino alert leenahay mar walba waxa fiican intaadan wax badan qorin inaad tijaabisid bilowga waxa ugu yar aad qori kartiin ku shaqeynayaan soo haddii save dhahno waxaan sameyn karnaa folderkeena ayaan ku dhufanaynaa folderkeena markaan ku soo dhufanaa double-kliga ayaan siin karnaa index-keenan ready ayaan soo baxday marka waxaan dareeminaa in isku xidhan page-keeni html-ka iyo javascript-geeni nice halkana waxaan ku samaysanaa division id-giisu yahay tusaale root division-kan ayaan soo dhex gelin doonaa javascript code-keena okay script-gan aynu teginaa variable cusub aynu declare garaynaa magacaan doono bixinaa tusaale container ayaan u bixisanaynaa kabacdina waxaan isticmaalnaa all javascript document.getElement by id kabacdina id-ga waa root kadibna haddaynu dhahno console aynu tijaabino bal wuxuu inoo soo celinayo save haddaynu dhahno oo refresh garayno kabacdina inspect element dhahno waxa u jeedaa console-ka markaanu galno wuxuu inoo soo celiyay DOM element DOM waxa loo soo gaabiyaa document object model kan waa hal element oo kamid ah kuwan oo dhanna waa DOM tree waa elementyadan oo dhan waxay soo hoos tagaan sida u kala waaweyn tusaale bariga waxa child ah cunug ah division-kan headkaas title-ka iyo wixii oo dhan ba iyo method-i ba mataqaana child ah marka waa parental child wuxuu noo samaysan yahay qaab tree ama geedka kala waaye haddaynu markaa division-kan aynu rabno inaynu element dhex gelino inagoo xagga javascript ka soo dhex gelina element cusub ayaynu sameynaa tusaale ahaan oo la dhaho title kabacdina waxaan isticmaalnaa all javascript document.create element maxay qaadataa elementiga magaciisa tusaale ahaan haddaynu rabno h2 oo hidden 2 ayaynu ka dhigaynaa elementiga ayaynu sameynay elementiga waxaanu sameynaynaa tusaale ahaan qoraal ku dhex jira soo waxaanu nahay title.text content equal qoraalkii ayaa dooranaysaa waxaan isbarbar dhigi doonaa sababta aynu react ku dooran doono haddaynu doonno class name ayaynu sameynaynaa class name maadaama class ay tahay reserved keyword oo javascript u kaydsan oo aan la isticmaali karahayn kabacdi haddaynu eegno haddii title-keenan save dhahno xaggana refresh garayno console-ka eegno waxaa u jeedaan DOM element oo h2 inuu yahay haddaynu rabno markaa inaynu dhex gelino container-keenan append ayaynu isticmaalanaa ama append child kabacdina waxaynu dhex gelinaynaa variable-keeni title oo u taagan heading-keeni soo haddaynu save dhahno oo aynu refresh garayno halka waxuu kaaga soo baxaya welcome to react.js marka qaabkan waa qaabkii hore javascript wax loo qori jiray bal aynu page-keena react ku soo darno kabacdina aynu isbarbar dhigno farqiga u dhexeeyo iyo sababta aad ku dooranaysid react waaye waxaan qoraynaa react.js cdn kabacdina linkiga ugu soo horeynu ku dhufanaynaa cdn waxaa loo soo gaabiyaa content delivery network labada script ugu horeysa ayaynu soo koobi garaysanaynaa page-kan ayaynu imaanaynaa halkan title-ka ka hooseysa ayaynu keenaynaa okay marka labadan waxa u jeedaa inay yahay waa react iyo react DOM waaye
qaabka marka aynu hadda wax u sameynayno waa qaabkii fududaa maaha qaabkii saxda ahaa waayo marka ugu horeysa waxaan baranaysid inaa wax fara badan habaysid oo configuration fara badan samaysid muhiim aha bilowga ayaa fiican sheeko walba bilowgeeda ay xiiso ku leedahay intii dhexda laga soo bilaabi lahaa waynu ku soo darnay reactigii kabacdi waxaan doonaynaa intaan iyadoo react ahaan u qorno so inta oo dhan comment ayaan ka dhigaynaa console-kan xataa ma baanin so waxaan leenahay maadaama aan react kusoo darnay react.create element react.create element maxay qaadataa saddex ay qaadataa arguments marka kooda elementiga magaciisa tusaale waxaan leenahay waa h2 tan kalena waa array of haddii class name uu leeyahay element iyo qoraalka ku qoran intaa markaynu samayno waxaan rabnaa elementigeenan aynu samaynay inaynu dhex gelinno divisionkeenan so waxaan isticmaalanaa haddana react dom dot render kabacdina elementiga aynu render garaynayna muxuu yahay waa containerkan kadibna xaggee ku render garaynaysaa ama ku abendi garaynaysaa renderkan shaqadeedu waa shaqadii abendi oo kale qabanaysaa abendi oo kale ayay qabanaysaa so haddaynu safe dhahno xaggana refresh karayno waxaan eegaynaa waxaan inagu haysto haddii waxba soo bixi waayaan console-ka la eegaa console-ka waxaan inagu haynaa create element is not a function halkana sida ayaan weynaysiiyey ma filayaa kadibna waan refresh karaynaynaa yes waxaa inoo soo baxay react is amazing haddaynu console-ka eegno waxaa ujeedaan root-keenii waxaan soo dhexgelinay h1 marka qaabkan maaha qaab kaliya loo sameeyo intan oo kale ayaa toos soo qaadan kartaa copy ayaa leedahay intanaad soo copy garanaysaa halkan iyadoo dhan ay keenaysaa soo waxaa leedahay hadda paragraph ayaa soo dhexgelinaa safe haddaan dhahno oo refresh karaynana iyadoo paragraph ayuu halkan ka soo baxayaa ujeedaan hb sorry b waa paragraphkaas haddaan rabno inaan class name ku darno class name ayaan ku darinaa meeshan arraydan soo aan keeni hore ku noqono si koodhkeena u kala saarno halkan class name kaga dari karna waxaan leenahay class name waa heading maadaama ereyga class uu u kaydsan yahay javascript so waa kan classki xagga haddaynu ka eegno class nameka waa heading marka markii hore aynu eegaynay containerkan oo console ka eegayna wuxuu noo saarayay dom element laakiin hadda bal haddaynu eegno elementigeenan muxuu inoo saarayaa hadday dhahno console.log containerkan sorry weliba kan title baa hadina u bixiyo title u bixi sorry ereyga variableka title baan u bixinay titlekan haddaynu eegno waxa ku dhex jira aynu refresh karayno console ka tagno waatan waa object halkan haddaa ujeedaan kii hore wuxuu inoo saarayay waa dom element buu inoo saarayay oo structurekan aynu haysano elementiga ka midka ah ayuu inoo saarayay laakiin hadda react maxay noo saaraysaa waa sidii dom elementigii oo kale laakiin oo ah javascript object oo hadda waa h2 properties keeda waxaa ka mid ah class nameka inay leedahay wax children oo kale inay isku sii dhex jirin oo hadda listi group oo kale yihiin laakiin qoraalka isku sii dhex jiro marka objectigan baa micnaheeda waxaa la dhahaa virtual dom ama vdom ayaa maqlaysa markaa react isticmaalaysid element walba oo sidan aa u samaysid wuxuu taagan yahay objectigaas oo inta la bedelo baa hadha waxaa la geynayaa real domkii ama domkii caadiga ahaa marka waa maxay sababta sida loo sameeyey ama waxaa looga cararaya javascript in sidan loo qoro kow waxaa sidan looga cararaya horta qoraalkani waa declarative oo mudmud baa ugu sheegtay wixii la qaban lahaa waa qaab dheer qaabkana waa qaab imperative oo fudud qaabkaas marka laga yimaado marka real domka la joogo qaabka marka koodhka u qortid mar walba element ku dartid iyo mar walba element ka saartid render ayuu isku samaynayaa domkii marka qaabkaas haddaad u qortid system weyn adoo samaynaya oo in badan oo intan ka mid a qortid real domkii ama domkii caadiga document object model culays weyn bay ku tahay waxaa laga yaabaaba in browserku xataa crasho laakiin markaa react joogtid element walba samaysid object ay ka dhigaysaa objectigan iyo objectiga hore ee domka ku dhex jirtay ayay isbarbar dhigaysaa ugu dambeynna intii loo baahnaa ayaa domka iska bedelaysa
marka waa sababta ay ugu yeedhaan virtual DOM cashirka dambe insha Allah waxaynu ku baran doonaa JSX syntax aad iyo aad ayuu mahadsantiin wabillahi tawfiiq